لأتينها الله كدارت يا به وإيمانا عنق يراك السكرات عنق يراك دشاك حنوصا آبه وإيمانا يا انتي الله كدارتي دارتي مركو مقلي وسو استاغي صلى الله عليه وسلم markii la yiri inantii way dhaaratay inaad u tagto waa soo dhaqaaqay dhowr saxaaba la socota Abdurrahman ibn Auf baa la socda Muaad ibn Jabal baa la socda Ubay ibn Ka'ab baa la socda koox saxaaba nabiga la socotay sallallahu alayhi wasallam qolkii anagu ku sakaraadayo soo galay anugii yaraa ee muqaddamaadka geerida ku jiray qolkuu ku soo xariirayo rasuulku soo galay inta ka bacdi kii yaraa ee sakaraadka loo soo dhiibay rasuulku mar allaala marka loo soo dhiibo jilbiisii ku fadhiisiyey jilbahu saa ugu fadhiisiyey ka bacdi canuga naftiisu way qaylinaysay canuga yariiska naftiisu khaaqday lahayd walaalaya maray kor u baxaysa marna hoosay soo aadaysay waa sabi waxaasana sugaaya walaalaya khaaq ayuu lahaa canugii hoos ayay u soo noqonaysaa kor bay aadaysaa nafsadiisa waa taqacqaclaynaysaa intaa ka bacdi rasuulku waa fiiriyey jilbaha ayuu u saaran yahay sakaraadka canugaha ayuu xamili waayey waa u adkaysan waayey sala allahu calayhi wasalam canugaa sakaraadka markuu saa u fiiriyey dhibkii waxyaabaha haysta uu arkay fafaadad caynaa nebiga waa ooyey sala allahu calayhi wasalam indhihiisaa biyo ka soo daatay sala allahu calayhi wasalam waxa nebiga ka ooyaana sugaaya walaalayaal waxa nebiga indhihiisa biyo ka soo qubaana sugaaya hala diyaar garoobo aakhira ha loo diyaar garaysto xumaanta ha layska daayo ama ha layska yareeyo walaalayaal in badan dad aakhira aan noqono daartaan waa u jeednaa waa aragnay waa u jeednaa waxay tahay waa naxdintaan waa dayntaan waa balaayadaan waa iscaydaan waa dhibaatadan wax kaloo ka dambeeyaa malaha qof walbow aakhira u kasba daar fiican inaad hesho war qof walbow aad u dadaan nebiga waa ooyey sala allahu calayhi wasalam nebiga mar allaala markuu arkay mashaakilka xanuunka kurbada dhibaatada canuga haysata fafaadad caynaa Cabdiraxmaan ibni Cawfaa yidhi wa anta yaa rasuula allah adimaa ooynay rasuulka ilaahayo maa haadaa yaa rasuula allah waxaan maxay tahay rasuulka ilaahayo ma ooynaysaa rasuulka ilaahayo yabna Cawf ina haadihi raxma ilintaan iga socoto waa naxariis buu dhahay sala allahu calayhi wasalam war waxaan aad u jeeday iga socdo waa naxariis canugaan ma u jeedid miyaa dhibaatada haysata xaaladda uu ku sugan yahay waa sabi aan weligii dambaabin waa sabi aan weligii dembi gelin ka warrama walaalaasee xaalkeedu noqona dad baa alla caaya subxaana wa tacaala dadaa salaada soo istaag ee masjidka soo gal aan laga karin dadaa war xaaraantaan iska daa laga karin dhallinyarada qaar baa laga karin dumarkaan iska daaya rabbigiinka baqa war guursadoo guur xalaala gala haddii kale zinadan iyo xumaantaan iska daaya hadal xun kuugu jawaabaya ma u jeedid miyaa sabigaan sida uu yahay yabna Cawf ina haadihi raxma tan raxmad waaye ilaahay wuxuu yeelaa qof allaala qofkuu doono qalbigiisa ilaahay wuxuu u naxariistaa addoommadiisa arruxamaa dadka naxariistaa loo naxariistaa ka naxariistaa loo naxariistaa sakaraadka korkiisaan wax ku xamanayna sakaraadka korkiisaa mijinqaada lagu wataa sakaraadka korkiisaa sigaar lagu caba sakaraadka korkiisaa xaaraan lagu cunaa maxaa noo dhiman walaalayaal qalbi qalayl intaa gaartay xaaladeenu tahay ilaahay maa u soo rujuucno